jiraba. dhinaca kale madaxa hay'adda SRO ee gobolka Cayn injineer Faarax Xaaji Cabdi waxa uu deeq lacageed gaarsiiyay mashruuca la doonayo in lagu xanaaneeyo carruurta agoomaha ee dhismeedu ka soconayo magaalada Buuhoodle isagoo lacagtaasi ka wareejiyay Sheekh Cumar Soodani oo ka mid ah guddiga gacanta ku haysa dhismaha xarunta agoomaha ee Buuhoodle. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala sayyidina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. halkan aanu joogna hadda waxa weeye waa xaruntii agoonta ee ku taalay Buuhoodle iyada oo dhismihiina uu socday oo hadda dhismihii ay waxna u hadheen sina ay u dhameystiran tahay shaqo badanna u hadhay caruur badanna hadda waxa weeye ay sugu soo furitaankiisa arrinkaas waxa weeye dad muxsiniina baa u soo diray oo ka soo diray imaaraadka isagoo aan magaciisana sheegin oo u soo gudbiyay Axmed Xaaji Cabdi anigoo Faarax Xaaji Cabdi ii soo gudbiyay yaa waxaan ku wareejinayaa qaybtii maamulka waxa weeye xarunta taasoo aan u dhibay lacagta $500 aan ku wareejinayo ilaahay waxa weeye kuwa soo dhiibeyna waxa weeye ajra ka siiyo kuwa shaqadoona ilaahay ajra ka siiyo iga qabo $500 bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in waan ka gudoonay Xaaji Faarax Xaaji Cabdi Allah barakeeyo iyo ragii soo diray lacagtan oo kamid ahaa kulay uu soo gudbiyay Sheekh Axmed Xaaji Cabdi Burukude ilaahay ha ku barakeeyo adiga cidii kale wax ku darsatayba mashruuca agoonta waa ka hadda aan taaganahay runtii uuna taagan yahay hadda dhulkana mar dhaw 3 section buu ahaado section baa hadda dhisan 8 qol ka dhisan yihiin oo dabaq dusha laga saaray waa qaybtii gabdhaha ah kan weeye sectionkii administration iyo sectionkii wiilashuna ilaa wadada uu jiraa waa dhul aad u ballaaran runtii waxaan leenahay marka walaalayaal way taagantahay hawshii oo waa hawl ballaaran dad badan baa yidhi waxaan ka qayb qaadanahay hay'ada ka socda ilaa hadda waxba lagama hayo dadka muslimiinta waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad sidii hore baan soo gudbin jirnay ugu celinaynaa meesha agoonta wax lagu darsado waayo nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ballan qaaday sallallahu alayhi wasallam qof agoon oo kafaala qaada ama dhaqaale ku bixiya inay jannada u maaragtay uu nabigu sallallahu alayhi wasallam ana wa kaafilatu mikaatayn fil janna aniga qof agoon oo kafaala qaada macnaha kafaalaqaad kaliya ma ama meeshii waxbarashadiisa ka qayb qaata ama cuntadiisa noloshiisa ka qayb qaata wuxuu sidaas u laba firood biyay saasaanu jannada ahaanana Allah subhanahu wa ta'ala muslimiinta wuxuu ballan qaadayaa oo maartay uu sheegayaa oo ku boorinayaa inay wixii alla siiyay wax kala baxaan Allah subhanahu wa ta'ala wama anfaqtu min shay'in fa huwa yukhlifuhu shay ma bixisan illa ilaahay bay idin bedelaya dadka muslimiinta oo meel ay joogaan badhib iska haysta saas meel walba waxa u daasan agoonta hadda waxaan soo duunay meesha dadka walwaalan dhibirka agoontii masaajidii dhibka maalin kasta dadka tiifiyada ka arkayaan waa dhib taagan laakiin qofka muslimka ah waa wax khayrka abwaabta khayrka oo wax ku darsan lahaa oo janno ku gal lahaa dhamaan ay yihiin Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ya ayuha alladhina anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafaa'a wal kafirun adh-dhalimun Allah wuxuu leeyahay Allah rasuulkiisa rumayadu wixii aan insiinay waxaanu insiinay wax kala baxa ka hor intaana imaanin maalinta furasha aan jirin qofku naftiisa aanu naar ku furan karayn hanti intuu la baxo aan isfuranayn oo iib jirin naftiisa aanu gadi karayn saaxiibtinimana aan jirin wal kafirun hum adh-dhalimun ko ni'am kale ku gaaloobi ama ilaahay maaragtay jirtaankiisa ka gaaloobi kuwaas ay naftooda dulmiyay baa leeyahay waxaan leenahay walaalayaal waxa la baxaa sida qofka uu waagi bariyaba cunto ugu baahan yahay iyo caafimaad cunto iyo cabitaan iyo caafimaad ugu baahan yahay ayuu waagi bariya ugu baahan yahay in wax iska hormariyo oo ay meeshan ku soconno meel laga soo noqdo ma aha meel wax laga dabageeyo oo wuxuu qofku ka horeeyo hormarsaday oo ka horeeya waxaan dadka muslimiinta meel ay joogtaan meesha agoonta waad u jeedaan wax ku soo darsada wixii hore la baxdana ilaahay bay idinka bay meel idin taala Allah wuxuu ballan qaaday ilaa 700 oo jeer qofkii wax la baxa مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت 7 سنابل بالله سبحانه وتعالى قف كي إلهي درت وحكو بحيه وعلمد ياي قف حبات هدورة تلالي تضبط سوالو صوص صارتي حبات كستو سوالو تضبط بغول من صوص صارتي مركوات تضبط بغول وجهر بالله والله ملابيا يا كبدا والله يتعرف لما شاء الله واسع عليم أساسا يكبرين هذا بالله صلى الله وسلم وعلى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله waxaan sida horeba leeyahay sheegay baad Allah hadda Allah iska leh umma hadnaqayna cidii soo dhiibatay iyaga leh
iyagaa meel dhigtay iyagay banka u sii taallaa waanu u mahadnaqaynaa dad kastoo sida Axmed iyo ciddii soo gudbisay kuwii soo dhiibtana ilaahay waxaanu uga baryanaa xasanaadkooda aakhiro miisaanka ilaahay inuu daro